Maalmahan waxaa indhaha caalamka ku sii jeedaan gobolka Bariga Dhexe iyo xiisadda kulul ee u dhaxaysa Maraykanka iyo Iiraan. Dowladda Maraykanka ayaa maraakiibteeda dagaalka u daabusha xeebaha Bariga Dhexe. Dhanka kalena waxaa diyaargarow xooggan galay dowladda Iiraan iyo xulafadeeda gobolka, iyagoo wacad ku maray in duulaan dalkeeda lagu soo qaado uu dhalin doono khasaare aysan mahadin cadowgeeda. Haddaba maxaa daaha gadaashiisa ku jira oo aadan ogeyn? Sidee ayayse dowladda Iiraan uga argoosan kartaa haddii Maraykanku weeraro dalkooda? Waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalkeena, balse intaanan u gudagelin muuqaalka, waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horreysay, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. Ku dhowaad 50 sano, Iiraan waxay si joogto ah isugu diyaarinaysay suurtagalnimada dagaal ay la gasho Maraykanka, maadaama aysan awood u lahayn inay la jaanqaado awoodda militari ee Maraykanka. Tehraan waxay beddelkeeda xoogga saartay xeelado ay ku abuuri karto khasaare ay ka mid yihiin culeysyo dhaqaale iyo kuwo amni oo baaxad leh, kuwaas oo rogi kara Bariga Dhexe isla markaana saameyn ku yeelan kara dhaqaalaha caalamka. Cabsida laga qabo dagaal ballaaran ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii maraakiib dagaal oo Maraykanku leeyahay soo gaareen xeebaha Bariga Dhexe, isla markaana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu muujiyay suurtagalnimada weerar lagu qaado Iiraan. Tani waxay imaanaysaa xilli nidaamka difaaca ee Iiraan ay si weyn u wiiqeen weeraro ay Israa'iil iyo Maraykanku fuliyeen xagaagii hore, isla markaana ay kordheen qalalaasaha iyo cadaadiska gudaha bilihii u dambeeyay. Haddana Tehraan weli ma ahan mid awooddeedu dhammaatay. Iiraan waxay haysataa xulashooyin kala duwan oo ay kaga jawaabi karto weerarada cadowgeeda, laga bilaabo beegsiga danaha Maraykanka iyo Israa'iil, kicinta kooxaha xulafada la ah ee ku sugan gobolka, ilaa qaadista tallaabooyin dhaqaale oo argoosi ah kuwaasoo keeni kara qalalaase saameeya Bariga Dhexe iyo xitaa dhaqaalaha caalamka. Balse sida ay Tehraan u doorato inay adeegsato qalabka ay haysato waxay ku xirnaan doontaa heerka khatarta ay u aragto inay wajahayso. Nidaamka Iiraan waxay haystaan awoodo badan oo ay adeegsan karaan haddii ay dareemaan khatar dagaal oo jiritaankooda halis gelin karta. Iiraan waxaa la rumaysan yahay inay haysato kumanaan gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo gaari kara ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalal dhowr ah oo Bariga Dhexe ah, waxayna ku hanjabtay inay weerari doonto haddii Maraykanku isku dayo weerar dalkeeda lagu qaado. Bishii Juun, Israa'iil ayaa weerar kadis ah ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala Iiraan. Iiraan iyadoo weerarkaas ka jawaabaysa waxay Israa'iil ku weerartay drones iyo gantaalo balaastig ah oo leh awood dheeraad ah. Qaar ka mid ah gantaalada iyo droneskaasi waxay ka gudbeen nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil oo caadi ahaan ah mid aad u horumarsan, waxayna geysteen waxyeello fara badan iyagoo sababay in Israa'iil ay gasho mowjado jahwareer iyo qalqalgelin ah. Iiraan waxay marar badan ka digtay in dagaal lagu qaado uu ku ekaan doonin Bariga Dhexe oo keliya, balse uu abuuri doono gariir saameeya caalamka oo dhan. Inkasta oo dhinaca militariga laga awood badan yahay, Tehraan waxay leedahay awood cadaadis oo ay ku carqaladayn karto suuqyada tamarta iyo ganacsiga caalamiga ah, maadaama ay ku taallo mid ka mid ah gobollada istiraatiijiyadeed ee ugu xasaasisan dunida. Iiraan oo ka mid ah soosaarayaasha tamarta ee ugu waaweyn dunida, waxay ku taallaa marin-biyoodka Hormuz oo ah marin-biyood cidhiidhi ah oo ay maraan in ka badan 5 meelood meel saliidda adduunka iyo qayb weyn oo ka mid ah gaaska dabiiciga ah ee la dareeriyay. Iiraan waxay ku hanjabtay inuu xirmi doono marin-biyoodkan haddii la weeraro, arrin ay khubaradu ka digayaan inay sababi karto kor u kac weyn oo qiimaha shidaalka ah oo ka baxa xuduudaha Iiraan, isla markaana dhalin kara hoos u dhac dhaqaale oo caalami ah. Dalalka Carabta oo iyagu ah dhibanaha koowaad ee dagaal dhex mara Iiraan iyo Maraykanka, waxay badankood ku dadaalayaan inay Trump ka dhaadhiciyaan inuusan weerarin Iiraan, maadaama ay si weyn u carqaladaynayso ganacsigeeda iyo kan dalalka Carabta ee deriska la ah. Awoodda Iiraan ee ah inay carqaladayso maraakiibta caalamiga ah iyo inay qalqal geliso dhaqaalaha adduunka waxay leedahay taariikh hore oo wax badan laga xasuusto. Dhammaadkii dagaal dheer oo Iiraan la gashay Ciraaq 1980-yadii, Iiraan waxay miinada badda ku aastay gacanka Faris oo ay ku jirto meel u dhow geeska Hormuz. Mid ka mid ahna wuxuu ku dhowaaday inuu dumiyo markabka dagaal ee USS Samuel B. Roberts ee Maraykanka sanadkii 1988, xilligaas oo ay ilaalinayeen maraakiibta shidaalka ee Kuwait. Dhacdadan oo markii dambe loo bixiyay dagaalkii maraakiibta shidaalka, waxay muujisay khatarta Iiraan ay kala kulmi karaan maraakiibta Maraykanka ee ku socda badaha Bariga Dhexe. Xilligii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, Tiintu waxay carqaladeeyeen maraakiibta ganacsiga ee geeska Bab el-Mandeb ee Badda Cas oo ay maraan ku dhowaad 10% ganacsiga badda adduunka. Marka lagu daro awoodda Iiraan ay ku carqaladayn karto geeska Hormuz, Tehraan waxay leedahay awood weyn oo ay ku keeni karto dhibaato dhaqaale oo caalami ah haddii ay dareento weerar ku wajahan dalkeeda. Haddaba daawada, maxay kula tahay adiga in dagaalka Iiraan iyo Maraykanku uu dhalin karo? Qaybta faallada ee commentiga nagula wadaagto.